shabakada caalamigaa shiniilenews ayaa saaka buuqatay dugsiga sare ee Sacadiin secondary school. dugsigani oo isagu ah mid baaxad weyn isla markaana ay wax ku bartaan ilaa 400 oo ardaya oo dhigta casharada kala duwan ayaa saaka waxaan u kurgalnay xaaladda guud ee dugsigaasi. haddaba dugsiga sare ee Sacadiin secondary school ayaa isagu ah iskool weyn isla markaana ay maalgelisay ururka ramad ee fadhigiisu yahay dalka Djibouti. intii aanu booqanay waxaan kula kulanay macallimiinta oo iyagu markaasi casharo kala duwan u qaybinaya ardayda. waxaan sidoo kale booqanay inta galaas uu ka kooban yahay dugsigani ayaa isagu ah mid ugu waxbarasho wanaagsan halkaas oo lagu garabarto agabka kombiyuutarka iyo casharo kala duwan oo heer sareysa. macallimiinta iyagu casharadana dhiga ayaa khabiir waxay leeyihiin sida casharada fiisigiska, biologiga, sayniska, xisaabaadka, Soomaaliga iyo maareynta. waxaa kaloo ay ardaydani bartaan sida casharada library-ga isla markaana waxa uu dugsigani yahay mid aad u weyn isla markaasina ay ardaydu ku kala bartaan casharo heer kala duwan. waana dugsiga ugu weyn ee ku yaala haatan magaalada Zayalac, dugsiga Sacadiin secondary school isla markaana isagu ah dugsigan ugu faca weyn ee gobolka Salal. waana dugsigii ugu horeeyay hay'adda ramad ay ka dhisto magaalada Zayalac. haddaba booqashadayadani saaka aanu kurgalnay xaaladda guud ee dugsigaasi ayaan isagu waxaanu ku soo indheynay xaaladda guud ee dugsiga isla markaasina arday kala duwan ayagu sanadkan ka qalin jabinayaan dugsigan ayaa isagu waxa uu ka kooban yahay ilaa 12 galaas sida sagaalaadka ilaa iyo form 4ka. waxaan kaloo dugsigani uu yahay dugsigii ugu horeeyay isla markaana jiilka cusub ayagu doonayaan in ay waxbarasho wanaagsan ka helaan. حسين محمد عبد الله شبكة عالمية shiniilenews مقالة Zayalac.